anshaxa 26 waan u mahad celinaa Ilaahay. Bar ilmahaaga inuu Ilaahay u mahad celiyo. Mahadnaqidu waa mid ka mid ah shucuurteena. Waxaan ku mahadinaa wax walba oo wanaagsan ee nolosheena leedahay iyo in lagu mahadiyo waxyaalaha aynu haysan. Tusaale ahaan ku dheh ilmahaaga, Ilaahay baa mahad leh inaan wada joogno, noo fudaydiyay helitaanka meel lagu noolaado, cunto, biyo nadiif ah, asxaabta iyo qoyska xitaa noo fudaydiyay helitaanka kombiyuutarka. Ogow waxa tahay macalinka koowaad ee ilmahaaga leeyahay. Iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. Waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba, si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.